dadkeena muslimiinta markii nabi maxamed uu alayhi salatu wasalaam jibriil u yimid ee cunaha uu qabtay isagoo gariiri buu tagay guriga wala zammiluni iduduba ma taqaanaan ruuxii isha u bixiyay ama talada siiyay khadiija bint khuwaylid xaaskiisii taladii oo ka kala anfiriirsan oo xaaladda ay ku adag tahay iyay dejisay waxay ku tirisaad moodi ma wax fiican u badaragtay deefo waxaa la yidhaahdaa raggi ninka raggii xaaladdu markay ku qadhaadhaato waxa uu ugu degitaan badan yahay ruux dumar oo aaminsan yahay haddii uunan wehel kaa haysanin ninku ma jirayo dee dhanka kale haddii loo dhigana waxay la tahay inay gabdhaha laftooda ninka weelkiisa isaga baahan yihiin laakiin asalku markii la yidhaahdo yaa wax badbaadiya soomaali baa nahoo dib hore ugu soo noqoto khadiijo iyo umulmu'miniin caaisha iyo muxuu ahaa gabadhii shuhadada muslimiinta ugu horreysay iyo kulli haddaad soo wada dhaafto dee waddada horteenna hadda villa soomaaliya haddaa marto waxaad ku arkay xaawataako xaawo cismaan ma taqaanaa nin kale mooyaan xaawataaka waxay ahayd gabadh firfircoon oo shaqo badan oo gumaysiga la dagaalanta oo SYL dhidibadii ay ku aasantay hawl weyn kaga qayb qaadatay oo halgamaa oo dagaalanta waa gabadh Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed ee jira hadii la tiriyana aad u farabaday laakiin waxaan ku soo koobi carabtu waa dhaweyto ay aad u dabaaldegayeen Urdun inay ahayd baan maray ay gabadh pilot noqotay oo diyaarad kicinaysay ku faantamay Soomaalida hadii dib aad ugu noqoto pilot dooliyo oo gabadh oo diyaaradaha dagaalka waliba dowlisa baynu lahay isagoo carab oo dhan markii la isu geeyo hal gabadh oo diyaarad baatri gaari wadi kara inay lahay marka gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho sharafan waa gabdho qiimo badan waa gabdhaha haddii la yiraahdo hala shaqeeyo ka horeeyo haddii la yiraahdo ilmaha hala haba ka horeeyo haddii la yiraahdo guriga yaa macalinka iyagoo ah haddii la yiraahdo talo wanaag iyo tusaalana kow ka ma daalaan gaarida ku badan waxtarkoodu wax la soo koobi kara ma aha inay hooyi iyo walaal iyo xaas kaliya rag u yihiin bulshada Soomaalidu meesha ay ka caafimaad qabto dumarka weyn meesha la rabay in laga hagana dumarka weyn gabdhihii Soomaaliyeed xafiiska ra'iisul wasaaraha oo caawa xafladaysanay in aan muxuu ahaa iska yar joogtid baan amaan dalka ma joogin marka la igu yiri 8 Maarch ma dhaafayso saaxiibada bay igu dacaydeen oo intii hore dhan wada iman lahayd marka gabdhaha maqashay waa soo dashay sidaa bay sax u tahay waa iska sii yar joogi karay maalmo laakiin inaan ka daaho ma jeclaysanin saaxiib gaar ah oo idin dhow in xafiiska muxuu ahaa idinka ahaadan jeclay hadii la yiraahdo marka hambaliyo aqoontu waa idinka taladu waa idinka waxgaradku waa idinka xafiiskan idinku nool xafiiskan hadii la yiraahdo hal nidaamiyo waxa nidaaminaya gabadh weey hadii la yiraahdo hal nadiifiyo waxa nadiifinaya gabadh weey hadii la yiraahdo waraaq hal saxiixo ma saxiixna waraaqayna gabadh soo qodi waxa xaqiiqo weeyaan marka aqligii iyo go'aankii iyo aragtidii iyo wanaagiiba waa tihiin inta dalxiistaan beertan idinka iska leh hadii la yiraahdo si fiican insha Allah ugu farxa idinka anoo idin matalaya shaqaalihii xafiiska anoo magaciina ku hadlaya anoo jecel in aan idin maamuusno idin tixgelino ayaa waxaan jeclaysanay in magaciina aan idinku mahadcelino oo aan shahaado dumarka xafiiska ra'iisul wasaaruhu hawlgalka ay hayaan kala duwan security leh isxilqaan leh xafiiska gudihiisa leh projectiye kala duwan leh muxuu ahaa agaasin leh wax karin leh maamul leh qaybaha kala duwan ee aad ku jirtaan dareen aan u qabno dartii waxaan jeclaysanay inaan shahaado sharaf
halkan dumarka xafiiska ra'iisul wasaaraha u soo jeedin waxaan idinku dhiibaynaa walaashin oo gudoomiye doorateen shukri